gabayaaya la xidhaa anu waxaan arkayaa wax qalad ah oo curfiga iyo dhaqanka dawladnimada labadaba ka soo horjeeda waayo qofka bini'aadamka inuu hadlo dastuurkeena ayaa u fasaxaya xurriyatul qowlkana waa inay bini'aadamku soo bandhigaan sida ay u arkaan xaaladda jirta kolba sida ay tahay waxaan filayaa waxa ugu weynay imika Cabdiraxmaan lagu xidhay inay tahay wuxuu ka hadlay saldhigyada iyo xaaladda jirta xaaladda uu ka sheekeynaya Cabdiraxmaan ee saldhigga ka jirta xaalad sugan bay ahayd haddii ay dawladii leedahay wixii aad Cabdiraxmaan oo sheegtay waa been isaguna cadaynteedii uun baa laga rabo wax cadna waa haydo waa loogiyo Ilaahay dadku way ogaayeen annaga ogeyn inay dhacdada noocaasi saldhigaasu koodbuur ka dhexdhacday ana ogaa oo malaayiin kale dad ogaa laakiin haddii dawladdu tiraahdo cid alla cid kasto ceeb aragtay waa la xirayaa taas aqal noqon mayso kolka san waxa way kaanaysaa imka dawladdu inay dagaal cad kula jirto way kaanaysaa dadkii gabiyay dawladdii inay dagaal kula jirto way kaanaysaa dadkii gabiyay kolka waxaan anigu leeyahay xariga Cabdiraxmaan waa qalad sharcina ma aha curfiga dadnimada ee caadiga ah kuma jiro dawladduna cidda dhaliisheeda u sheegta waa in inta iyadu dhaliishii qaadato ay wixii saxdo laakiin samaaha inay dhaliishii ka gubato ay dhaliinta iska dhigto ay boris ku qastay inaad maaha qalad baan u arkaa waana qalad waxa uu sheegayna waa wax dawa waana wax saxa saldhigyada inta iyo in kale oo ka xubin way ka jiraan inta uu sheegay iyo in kale oo ka xubin saldhigyada way ka jiraan dawladuna annagu waanu ixtiraamina dawladuna waa inay dadka ixtiraam badbadin baladan ku dhiibay in gabaygu hadal xabad ninna xabad muu qaadan oo muu ridin soo ma hade ninna wax muu yeelin horta gabaygu waa hadal ila dadku hadduu hadal ka damqado hadal hadduu qofka bini'aadamka ka damqado kolkaasi sidoo dadkii la isugu wadi karaya ilaa ninka gabiyo uu hadlayna adeere wax kale oo hadalka weyn oo sameeyay miyuu jira kolkaas sidii anagu uga badbadinna ma waxba yaan la sheegin baa badriyo saxaafadu waxbay sheegtaa bini'aadamka kala dheer caadiga waxbuu sheegaa ninka gabiyaanada dadku la mid yahay hadduu wixii jira sheego miyuu ka badbadiyadaan ku dhibay inaan isaga fariino diraa madaxweynuhu waxaan u ogeyn ma jiradii hadduu ninkaasu gabayaagi qalad laga tirsanayna waxa fiican maxkamadda dayn la tago oo la yiraahdo qofkaasu defamation of character buu booliskii ku sameeyay ha iska dul qaado laakiin se qofkii haddii xafla siiyo la xiro uun taas waa cabudin madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne taas waa cabudin booliskana cabudin bay ku tahay inaguna sharci baynu ku wada joognaa laakiin haddii maalinba qof la xiro waxay noqonaysaa meesha sharciyadii ba ka baxaysa